الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه أما بعد waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasto ay joogto gaar ahaan waxaan salaamayaa beesha aan ka soo jeedo oo aan caawa u qastiyay inaan hawada u mariyo clip ama video aan iska duubay marka koobaad waa idin salaamaya meel kasto aad joogtaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan dabadeed beesha aan ka soo jeeday dhulbahante waxaan ugu baaqayaa oo aan baaq ugu dirayaa waxaa socota khiyaamo cad oo aan geed la isugu soo toosin khiyaamadaas oo ah khiyaamo shaab maamul la idinku khiyaamaynayo maamulka la yidhaahda khaatumo baa la idinku khiyaamaynayaa war ninkii xabad idinku qabsan waayey xabad ninkii idinku qabsan waayey haddii qalin la idinku geeyo qalin caaradii oo la xarxariiqay ama inji oo la idinku qaato war miyayn qaranjab idin ahayn qaranjab miyaysan idin ahayn taa haddaan intaa kaga gudbo waxaan leeyahay niman yahow sool sanaag iyo cayn gaar ahaan qolada hadda gacanta ku haysa khaatumo ee buuhoodle iyo aaggeeda joogtow warshaarkii somalilan yaa waxaa loo geliyey khaatume war fadhiga ka kaca oo shirka la idinku baaqaya ismadu ay ku baaqeen war shirkaa la shaqeeya kaasaad ku faa'iideysaan shirkaasaad ku faa'iideysaan wiilasha diyaas barada ahee dibadda ka imaanaya dalka shalay bay yimaadeen baasaboorada maraykanka iyo meelaha ka yimi wata dalka isimadaa lagaga maqnaa oo loogu yimi oo u talinayay haddana iyagaa u talinaya iyagaana u talin doona wax ayan wadanina ma socon doonaan mana socon jirin mana socon doonaan waxaad soo dhoweysaan oo aad si kaliya laaba isugu taagtaan oo naf iyo maalba isla garab taagtaan shirka ismadu ku baaqeen buuhooda ka qabsoomaya ee dhulbahanta u dhan yahay ee ismadu u dhan yihiin war shirkaasaa dantiinu ku jirtaaye garta waxaa la nimaa waxa soo socda garan waxa jooga ma garto ninka maanta idinle somalilan iyaan burca ugu tegayaa ama imaaraadka ugu tegayaa waa nin caddaystay waxa weeyaan oo filinkiisa iyo hawshiisu caddahay oo somalilan ah ninkaas ha laga fiirsado ha la iskaga hadho hadday baarlamaanka khaatumo tahay iyo hadday ra-iisul baarlamaanka tahay iyo hadday madaxweynaha tahay iyo cid kasta oo waxa weeyaan halkaa idinku wada iyo hadday wasiirada khaatumo tahay war shirkaasu waxa weeyaan waa khiyaamo dalkiina in lagu dhiibaa la doonayaa taas intaasaan kaga baxayaa waxaan uga gudbayaa war dhulbahantow daarood baad la dhalateen oo harti baad la dhalateene wax la qaba oo dhinaca saara oo ku tiirsanaada qodobkaa waa ku celinayaa war ciddaad la dhalateen waa taqaaniin war gaalkacyaan la weerarayn oo aanaan la colloobayn oo garow aanaan la colloobayn oo aanu jecelnahay oo tolkayaanu meelu joogaba jecelnahay kuwa dhinaca jigjiga naga xigaanu jecelnahay oo waxaanu jecelnahay kuwa xagga naga xiga gaalkacyo oo waxaanu jecelnahay kuwa xagga garowa naga xiga oo nin kasta oo magaca nala wadaaga waanu jecelnahay colaadiisuna na geli mayso xumaantiisuna na geli mayso taana intaasaan kaga gudbayaa cidda la colka ana taageeri mayno weligayaanaan taageerayn sokeeyaha waxa colaadinaya sokeeyuhu wuxuu na yeela waa ilaaweynaa waxaanu yeelana wuu ilaawayaa laakiin shisheeyaha waa la xisaabtamaynaa shisheeyaha waanu la xisaabtamaynaa waxaanu la xisaabtamaynaa sidii loola xisaabtami jiray dalka waa la kala leeyahay deegaankana waa la kala leeyahay waxaan leeyahay taa intaa haddaan kaga gudbo war reer buuhoodlow war ninkii qoriga idinku imaan kari waaye wuxuu watay furka aad kala hadheen maanta iyo magac
magac maamulo aad leedihiin yuuda ku qabsan nasiibkeennu wuxuu ina siinayaa soomaali mida haddaynu weynana wartolkeen baynu wax la qabnaa haddaynu waxa noqonaynana wayna dhisayaa waynu ognahay taa waxaan idin leeyahay reer buuhoodlow gaar ahaan shirkaa soo dhaweeya lagu qabanaya halkaa shirkaa lagu qabanaya buuhoodle isu taaga aynu isu taagno aynu taageerno aynu hirgelino taa intaasa kaga gudbayaa hal qodob waxaan hawada u marinayaa oo aan intaa ku darayaa baarlamaanka khaatuma ninka fadhiya oo aan dhegaystay oo leh shirka buuhoodle la qaban maayo shirka buuhoodle waa la qabanayaa ismadaa qabanaya ciidankii difaaci jiray baa qabanaya oo wata tolka guud baa wata nin is hortaagi karaa ma jiro silaayaan is hortaagi karin nin khaatuma wataan hor istaagi karin bawers buu ku soconayaa dhowr iyo 10 isim iyo awoodoodii baa wata cid is hortaagi kartaana ma jirto haddii la leeyahay maamul kale ku tiirsan yahayna oo Puntland carabka lagu mudayana war Puntland waa sokeeye annagaa dhisanay way noo dhisnaan doontaa haddaanu ka baxaynana way noo dhisnaanaysaa haddii dhulbaanta ka baxayana waxa weeyaan way noo dhisnaanaysaa halkaasay noo dhisanta noo joogtaa Puntland waa maamul aanu leenahay cadowgeedu ha jabo Puntland cadowgeedu ha jabo wixiina nacab Puntlandna nacab waxa weeyaan waxayna yeelayaan ma jirto waxay yeelayaana ma jirto tolkana waa ku tiirsanahay waana ku tiirsanaan jirnay taa intaasaan kaga baxayaa dhulbahante waxaa baryahan ku soo kordhaya in isimada la caayo war isimada waa la kala leeyahay isimada nin walba isim buu leeyahay nin walba isinkaaga dee meeshaad waxa weeyaan ku aflagaadoonaysid ee aad nin isinkii u aflagaadoonayso isim baad leedahay ee isimkaaga kusoo dabafayl isimada na amra oo na amri doona isimada shiray baa na amra oo dalka amra oo deegaanka amra oo weligood gacanta ku hayay weligoodna ku hayn doona loogana dambayn doonaa taana intaasaan kaga baxayaa isimada iyo awoodda guuda dhulbahanta waxaan ugu baaqayaa awooddii idin difaaci lahayd dhista tolkii la kaashada daarood la kaashada oo harti la kaashada oo naftiina iyo maalkiina la kaashada oo maskaxdiina la kaashada war awooddii idin difaaci lahayd dhista yaa shaar dowladeed laydin soo qaadan maamul somaliland reer baale khaatumo waa magaceena badbaado khaatumo ha la sameeyo oo shaarkii khaatumo sidata anigoo hareeri hayba suudiya baa sidaa idin leh waxaan leeyahay nimanka marna ballica tegaya marna taleex laga soo eriyanayo marna saaxdheer laga soo eriyanayo war waxay yihiin baaba iska yar inay naga hadlayaanna maaha hadalkoodii iyo hanjabaadooda wax laga soo qaadana maaha waxay hayaan baaba iska yarba waxba ma hayaanba iyagii baa buuhoodla ku gabanaya marka waxba ma hayaanba marka waxaan leeyahay dalku awood buu lahaa military buu leeyahay ciidan buu leeyahay isagii baana gacanta ku hayn doona isagii baanuna taageeraynaa waxaan idin leeyahay ha la ysku tiirsanaado difaacu sidii uu ahaa waxa weeyaan ha sii ahaado nimanka marba meelaha kasoo wareegaya doonaya in cabdi yuusufo shalayba ka soo cararay kalsaana markii la isku dilayay war maanta burca i geyn maayo waluusan inii geynin suraya oo la khalday buuhoodle waxa weeyaan difaaciisii u jabi maayo midnimadiina waa sideedii aflagaada iyo cayna igama mudna iyagu ma aflagaadaynaya lakin waxaan u sheegayaa laf qallalan inay toobin ku hayaan laf qallalan bay toobin ku hayaan bawers baa la isticmaalayaa tolkaanu ku tiirsannahay awooddayadiina waa sideedii wixii aan khaldayna dee nafteeday ka ahaadeen wixii aan saxayna ilaahay baa igu toosiyey shirkaana hala taageero reer buuhoodlo shirkaa hala taageero dhulbaantoona gacanta isqabso cadowgaagu waa mid cadowgaagu waa mid cadowga aad leedahay waa ka naf iyo maal iyo dalba ku doonaya qabiilka aanu wada dhalanay ee majeerteen ula coloobi mayno xurguf reer dhex martay 170 wiila kalsaala ku dhintay u ilaawi mayno xurguf khaasa annagoo qarana tolka yala kaga go-ay mayno cadowna ula walaaloobi maynaya deegaanka aanu iska leenahay haddaanu nahay annaga oo warsangeli ah iyo dhulbahante annagoo warsangeli iyo dhulbahante annagoo ah deegaanka aynu leenahay ee aynu iska leenahay war in la qaybiyo oo isaa qaybiyo
والشرف إنه معها ما قعنا إنه معها شريتان إنه معها ديجان كأنه إسكال لهاي ورين إلى الدور إلى غيبيو أو يساق إلى غيبيو والشرف إنه معها جودها وحلا هاي ورهرتيه ديجان كنا يلا غيبين وردارو ضدك كلاوا ميده هو waxaad ku kala cabataana yeysan jirin ciidaad ku gardarootaan iyo ciidaad dulmidaana yeysan jirin waxaan leeyahay oo aan ku celinayaa wardaarooda deegaanka aynu leenahay in lagu gorgortamo oo nin ku gorgortamo war sharaf ilo ma aha wax kasta hayna dhaxmareen daarooda ilaa iyo sanadkii cali yuusuf wax kasta hayna dhaxmareen laakiin danta guud kama tanaasulayne war deegaanka aynu iska leenahay runna waa runbeenna waa been deegaanka aynu leenahay nimayuusan qaybinin gacmahan aynu isqabsanno xorguf waxa weeyaan ayaan lagu kala tegin midnimadeennina aynu soo ceshanno cid ina qaybisaana aysan jirin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu